Inqilaabkii uu xukunka kula wareegay Ibrahim Traore waxay noqotay libin baal dahab ah ka gashay sooyaalka taariikhda dalka Burkina Faso, waana tan ninkan ka dhigtay madaxweynaha ugu da'da yar caalamka iyo shaqsiga loogu hadalhaynta badan yahay madaxda Afrika. Qorshayaashii uu ku dhaqaaqay ee kala ahaa ceyrintii uu dalkiisa ka buriyay Faransiiska oo uranium-ta Burkina Faso si xawli ah u guran jiray, iyo shati kala laabashadii shirkadaha qodi jiray dahabka dalkaasi oo lagu biiriyay diidmada deymihii IMF iyo World Bank, waxay Ibrahim Traore ka dhigeen ninka reer galbeedka ay ugu neceb yihiin madaxda Afrika. Tillaabooyinkii uu qaaday waxay soo dedejiyeen inuu yeesho cadow fara badan, waxaana tiro beel ah isku dayada dil ee uu ka badbaaday tan iyo markii uu xukunka la wareegay, kuwaas oo iminka inta la diiwaan geliyay ku dhow 100 isku day dil oo ay cadowgiisu maleegeen. Cadowga Ibrahim Traore ayaa loo kala qaadaa 4 qaybood. Kuwa gudaha haddii aynu ku horeyno, kuwa koowaad ayaa noqonaya kooxaha argagixisada ee dalkaasi Burkina Faso ka dagaalama. Midka labaad ee gudaha ayaa ah siyaasiyiinta aragtidiisa kasoo horjeeda ee u dhashay Burkina Faso. Midka saddexaad ee cadowga gobolka ayaa ah dalalka Benin iyo Ivory Coast, iyo cadowga shisheeye oo ah wadamada reer galbeedka, si gaara Faransiiska iyo Mareykanka oo waqtigan isna qarsan la nacaybka fog ee uu qabo ninkan. Qolyaha argagixisada oo cadowgiisa koowaad ah ayuu dagaal kula jiray tan iyo markii uu ku biiray ciidamada dalkiisa, isagoo dagaalka uu kula jiro ku helay dalacsiin iyo bilado kala duwan, waxaana uu qayb ka yahay ragga ay sida aadka uga cabsadaan, taas oo ka dhigtay inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee kaalinta ku leh shirqoollada loo maleegayo. Sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka Burkina Faso, si gaara kuwa u jajaban Faransiiska, ayaa si aad uga soo horjeeda siyaasadda Ibrahim Traore. Siyaasiyiintan oo taageero u ah raggii kursiga ugu horreeyay sida madaxweynihii hore ee Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore iyo ninkii xigay ee Paul Sandiego Dimba, ayaa dhowr jeer maleegay shirqoollo isku daya dil ah oo uu ugu caansan yahay midkii fashilmay sanadii 2023 oo ay ka dambeeyeen rag taabacsan labada nin. Qaar ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ayaa sidoo kale Traore ku ah cadow, waxaana dalalkaasi laga tilmaami karaa Benin iyo Cote d'Ivoire ama Ivory Coast. Labadan dal waxaa saldhigyo ku leh Faransiiska, waxaana labada dowladood uu Faransiisku ka dhaadhiciyay in Ibrahim Traore uu qalalaaso iyo argagixiyo ku yahay gobolka, isla markaana uu kala fogeynayo Faransiiska iyo Afrika. Qorshahaasi Faransiisku wato ayaana dalalkan ku xambaaray in Ibrahim Traore ay u arkaan cadowgooda koowaad, ayna abaabulaan shirqool walba oo xukunkiisa lagu naafeyn karo. Traore ayaase labadan dal u arka albaabkii uu Faransiisku ka maamulayay qaaradda Afrika, wuxuuna dhowr jeer kula taliyay madaxda dalalkaasi inay dib u xisaabtamaan iskana tuuraan heeryada shisheeyaha, balse uma eka kuwo weli ku baraarugsan dibindaabyada shisheeyaha ee u muuqata Traore. Sidoo kale reer galbeedka, siiba Faransiiska oo ah cadowga Traore, waxa uu abaabulay dhowr jeer shirqoollo looga takhalusayo Ibrahim Traore, balse midna kuma aysan guuleysan, waxaana xadkabax noqotay dhaqaalaha Faransiisku uga baxayo sirdoonnada ay ku dhex leeyihiin Burkina Faso si ay xog uga keenaan Traore. Inkastoo ay marar badan ku hungoobeen inay ninkan nolosha dhaafiyaan, haddana wuxuu u muuqdaa Faransiisku mid aan ka rajo dhigin qorshahaasi. Diidmada uranium-ta uu Faransiisku ka xaabsan jiray Burkina Faso, ceyrintii ciidamadiisa iyo is-hortaaggii ahaa inaanu wax saameyna ku yeelan siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaasi, ayaa Faransiiska ku noqotay lama filaan iyo dhaawac gaaray siyaasaddii uu ka lahaa Burkina Faso, waana tan qasbaysa inuu waqti iyo xoog badan geliyo sidii uu u soo koobi lahaa xukunka Traore. Mareykanka ayaa isna waqtigan u muuqda mid ku ajanda ah Faransiiska, waxaana dhowaan mar uu warbaahinta la hadlayay Michael Langley oo ah ninkii ugu horreeyay oo madow Mareykan ah oo gaaray darajada 4 xidig leh, uu weerar afka ah ku qaaday Traore, isagoo ku eedeeyay inuusan dadkiisa uga faa'iideyneyn kheyraadka dalkiisa sida dahabka, taa beddelkeedana uu isagu iska guranayo kana taajirayo, wuxuuna hankiisa ku sifeeyey inuu yahay mid kale tirisnimo oo uu xukunka ku dheereysanayo. Qorshahaasi ayaa bidhaaminaya in Mareykanka uu u hanqal taagayo Burkina Faso, isla markaana uu wado qorshe ah sidii uu duulaan ugu soo qaadi lahaa, isagoo adeegsanaya cadowga gudaha iyo kuwa gobolka ee uu leeyahay Ibrahim Traore. Waxaana dhanka kale jiro xogo sheegaya in Mareykanku uu bilaabay inuu dhaqaalo ku bixiyo hab kicin bulsho ah oo uu isaga horkeenayo Ibrahim Traore iyo shacabka Burkina Faso. Dhan kastaba, marka dib loo milicsado taariikhda Afrika, afgembiyada militari ayaa ahaa kuwo horseedi jiray xukun kale tirisnimo iyo nidaam sharci darro ah, waxaana kolka awoodda lagu maroorsado qori caaradiis lagu lifaaqi jiray dhiig daata, burbur hantiyeed, afduub xuquuqda aadanaha ah, iyo dhibaato soo wajahda muwaadiniinta caadiga ee dalkaasi. Hase ahaatee, soo bixitaankii dhamme Ibrahim Traore ee uu kula wareegay Burkina Faso ayaa waxay hurisay dood cusub oo ku qotanta xalaalnimada, ahmiyadda iyo aayaha dambe ee afgembiyada militari.
gaar ahaan marka ay jawaab u yihiin caburin, musuqmaasuq iyo shisheeye macaangaga ah oo ku gambanaya dalada dimuqraadiyadda. Shisheeyaha ku xididaystay hanaanka dimuqraadiyadda iyo ku tagrifalka awoodeed ee qaaradda madow ku ihaaneysteen ayaa Traore ka dhigaya nin abuuray isbeddel rasmi ah oo ku suntan wadaniyad, howlkarnimo iyo damqasho ku aadan dadweynihiisa. Si kastaba marka la eego ammaanta badan ee la huwiyey Traore iyo hanweynida loo qabo waa mid cabsi badan ku abuuraysa reer galbeedka, kuwaa oo baqdin ka muujinaya in guushiisa ay noqoto mid hiyi kicisa Afrika inteeda kale, isla markaana horseeda afgembiyo kuraasta hore keena madax Afrikaan ah oo dalalkooda ay lexjeclo ka hayso, kuwaa oo daaqada ka tuura danaha reer galbeedka ee macaash doonka ah.